gurigii sidii ay reerkii isku arkeen guriga la jibiyay alamu guriga markii la jibiyay albaabkii markuu ka galay qofkii ugu horeeyay asagoo ahaa albaabka galo wuxuu arkay walaashiis oo markaas oo meed ah oo wajigeeda iyada dhanba dhiig oo bedelay waxay u taalay kulli qof dumar bay ahayd horta madaxeedu u qawnaa mididan waxay ku tiilay dhuunta wax ka jarneed anka meelahan wax ka jarneed gacanta meelaha waxbaa ugu yeelay garbaha midi baa ku tiilay dhagtoo kale iyo wuxuu ahay midi uu ku galiyay inta anka meelahan oo kale wuxuu midi uu ka galiyay laakiin waxa ugu daran waxay ahayd waa markii uu mididii uu ku gooracay wuxuu ahaa 11 maalin oo kaliya ayuu qabay hase yeeshee gacantiisa ayuu midi qoorta kaga jaray waxa uu meedkeedu qarsanaa ku dhawaad 3 maalin waa qiso naxdin leh oo kale taas oo tilmaamayso in falalka arxan darrada ah ee dumarka lagula kacay ay soo badanayaan waxaan muuqaalkan idin kula wadaagi doonaa walaalka gabadhan dhimatay oo ka sheekeynaya habkii argagaxa lahaa ee loo dilay walaashiis oo ah hab naxdin leh haddii aad maqashana walwal fara badan kuga abuuri doono hase yeeshee daawade inta aanan kula wadaagin fadlan muuqaalkan leeg saar maxaa yeelay leegtu waxay noo tahay dhiirigelin iyo dardar iyo inaynu maalin walba idiin soo sameeyno muuqaal cusub sidoo kale nagu soo biir oo channelka subscribe dhaho muddooyinkii ugu dambeeyay Soomaaliya waxaa ku soo badanayo falal dambiyeedka lagula kacayo dumarka waxaana bil walba ama isbuuc walba la diiwaan geliyaa kiis argagax leh kaas oo lagula kacay qof haweeney ah hase yeeshee daawade dhacdaba waa dhacdadeedii middan waa mid murugo iyo naxdin leh maxaa yeelay bilowgeedii waxay ku bilaabatay hab farxad leh hase yeeshee ugu dambeyn murugo naxdin leh ayaa laga soo wariyay gabadhan Soomaaliyeed iyo wiilkan ayaa markii hore isxalmaday iyaga oo reerkooda u tagay dabadeedna waa la is soo siiyay hase yeeshee 11 maalin oo kaliya markii uu qabay ayuu gacantiisa ku dilay waxaa ka sheekeynaya falka argagax leh gabadha walaasheed oo tilmaamaya habkii ay wax u dhaceen ee waa kan ay la daawada kulli waa dareemi kartaa jirkaada oo maaragtay go'ay anaga waan qorto kullu nafsi daqiiqatul mawt horta qof kasta waa dhimanaysaa gabadha walaashay waaye madiina taajira la yiraahdaa aniga xasan taajira la yiraahdaa waa daadiga weyn aniga gabadha habeenkii jimcaha ay xaafadda imaaday oo ay soo booqatay maqribkii iyadoo casho soo raadsatay muufa soo doonatay kadib muufadii way qaadatay maqribkii intii isaga dukatay xaafadeeda isaga laabatay wax dhiba ama wax ay sheeganaysay aan ognahay ay noo sheegteen habeeraatay ma aysan jirin shalay 11 saac bar mar ay maqribkii ku dhowdahay ayaa gabar reerkooda ah ayaa noo timid xaafadda hooyay imaaday iyadoo baadi goobayso gabadhaas madiina ma idin imaaday xaafadda ma joogtaa gurigii wiilka uu ka maqan yahay iyadoo dhayso kadib waa loo sheegay inaysan gabadha joogin oo xalay guriga ugu dambeysay markii la sii wareystay waxaa la ogaaday inay gabadhii macnaha anaga xaggeen is soo jirin wayna naga tagtay markaas oo gabar walaashay ayaa joogtay raaxat taajir la yiraahdo iyo hooyaa joogeen kadib way iska baxeen aniga i soo wacday markii gabadhii walaashay ahayd si ay ila soo xiriirto xaaladda ila socodsiido xaaladda markii ila socodsiiday waxaa dhacday gabadhii idin timaaday maxaa u dhihi weydeen gabadhii guriga hala jabiyo maadaama wiilka uu maqan yahay ayaga maqnaashay ay ku og yihiin gabadhii maxaad u dhihi weydeen guriga hala jabiyo si loo ogaado gabadhii inay guriga ku jirto inay ka maqan tahay haddii ay guriga ka maqan tahay wiilkana uu maqan yahay waa baab gooni ah oo laba isla maqan oo meel isla jiro kulley inay yihiin ama laba isla maqan inay yihiin ay ahaan leed laakiin haddii wiilkii iska baxay uu maqan yahay oo ayaga reerkooda dhahay wiilku uu maqan yahay gabadha idinka xaggeena may soo jirtaa raadinayaan gabadheena annaga ma haysanay gabadha guriga ha laga baadigoobo muuqaalkan oo sii socdo ayuu mar kale wiilkan Soomaaliyeed waxa uu ku sheegayaa habkii loo ogaaday in gabadhani ay meed tahay waxyaabo argagax leh ayuu tilmaamayaa oo ay ka mid tahay in gabadha oo meed ah guriga loogu tagay hase yeeshee daawadi haddii caruur ay kula daawanayaan muuqaalkan fadlan ka fogay maxaa yeelay waxa uu ka sheekeynaya waxa ku jiro waxyaabo badan oo naxdin leh bal daawadayaal aynu isla daawano mar kale isagoo sharaxayo qaabkii loo ogaaday geerida gabadha isla markii gabadhii wacday waxay tiri guriga hala jabiyo waxay dhahday guriga ilaalinayo haddii la jabiyo
way ugu soo celisay gabadhii saasay leedahay. waxaan dhahay marka sugaan dhahay anaa wacay Cabdiraxmaan wiil walaalkay oo aniga la dhashay oo gabadhaas daada ka sii weyn ah ayaan wacay xaafadan uu ka dhawaayay oo daris ay ahaayeenba. isaga waxaan dhahay ka waran xaaladda waan maqlo yiri arintaas gurigaan tagay haddana waan ka laabtay oo dhahay guriga waan ka soo tagay. okay haddii aad ka soo tagto waxaan yiri guriga dib ugu laabo waxaana samaysaa guriga inaad maaragtay reerkaas idinka isla jirtaan inaad guriga jabisaan. gurigii sidii ay reerka isku arkeen guriga la jabiyay. alaamu guriga markii la jabiyay albaabkii markuu ka galay qofkii ugu horeeyay asagoo ahaa albaabka galo wuxuu arkay walaashiis oo markaas oo meed ah oo wajigeeda iyada dhanba dhiig oo bedelay. marka qaabkii wax ugu yaalaan ma uusan fahmin laakiin wuxuu sheegay in madaxa uu wax ka gaareen uu sheegay dhiigii macnaha ku yiilay aaweed. gabadha dhaawac badan ku yiilay dhaawacyo yar yar horta ku yiilay qaababkan oo gacanta oo kale meelahan oo kale midiya ugu tiilay dhinacan dhan ilaa iyo intaan midiyo uu ku mudmuday iyo waxa uu saan ugu sarsaray dhagtoo kale iyo muxuu ahay midiyo wax ku galiyay inta canka meelahan oo kale wuxuu midiyo ka galiyay. laakiin waxa ugu daran waxay ahayd waa markii uu mididii uu ku gooracay muxuu ahaa 12 maalmood ay kaliya eeba wada noolaayeen habeenka 12aadna waa habeenka jimcaha oo meeday ahaydba oo asiga dilay. ayaga is doortay oo gabadha iyada noo soo sheegtay oo noo soo bandhigtay in ninkaas ay heshiiyeen reerkan uu u soo dirayso. alumuum gabadha reerka ee qofkii ay keensato waa la soo dhaweynayaa waa soo dhaweynay way noo imaadeen isaga iyo laba nin oo adeeryaashiisa noo imaadeen. inta qolkan ay ahaa qolkii aan maaragtay isku soo baranay markaas imaatankii koowaad kulankii koowaad caruura u joogtay 3 caruura u joogto alxamdulillah. marka asagana hadda waa intaan ku sheegay waayaba 3 bishii ay gurisay 11 habeen kaliya bay isla noolaayeen. jirkiisu oo dhiig yahay oo maaragtay bac wato dokumentiyo wato lacag 1 milyan ah bac ugu jirto furo wato dhar dhiigana oo maaragtay dharkiisa oo dhiig yahay 11 saac oo subaxnimo in laga qabtay muxuu ahay madaxtooyada agteeda. qolada madaxtooyada ay qabteen weydiiyeen oo u sheegay in macnaha uu xaaskiisa uu soo dilay. kadib waxay ku wareejiyeen qoladan oo la yiraahdo muxuu ahaa saldhiga oo Xamarweyne. saldhiga Xamarweyne ayaa sidii kiisku kula wareegay. runtii waa muuqaal murugo leh hase yeeshee waxa ay kasii murugo badan tahay kadib markii goobjooga arkay gabadha meedkeeda laga wareystay qaabka ay xaaladdu ahayd markii ay soo galeen guriga. waxa uuna tilmaamayaa habkii argagaxa lahaa ee gabadha loo dilay iyo qaabkii u muuqda meedkeeda oo ahaa runtii aragtidii koobaad mid naxdin leh. waa kan ee ila daawada wiilkan oo si la yaab leh u sharaxayo. horta xaaladda meesha aan kala kulmay iyo hadda jawiga guriga ka muuqda difference aad u weyn horta u dhaxeeya iyadoo xaaladdu meesha ka jirtay xaalad aad u liidata. gabar oo maalintii la dhiibayana aniga aan ogaa haddana markii aan meesha u imidna iyadoo meed aan u imid oo aan la arki karin la fiirin karin xaaladeedana kolley qofkii maaragtaa imaan leh inuu iska sabra maahane wuxuu sheegay oosan garanayn meesha aan kula kulmay. waxay u taalay kolley qof dumar bay ahayd horta madaxeeda u qawnaa mididan waxay ku tiilay dhuunta waa ka jarneed canka meelahan waa ka jarneed gacanta meelaha waxbaa ugu yeelay garbaha midi baa ku tiilay cajarada iyo midi baa ku tiilay dirac baa ugu jiray oo maaragtaa oo aan jeclahay inuu ahaa nuuciisa nuuc ay dumarku dhahaan qaxwada. marka si oosaanay u jiifta marka kolley joodarin waxay ka jiiftay dhanka soko oo haddii joodarin lagu fadhiisto lagu talagal lagu fadhiisan lahaa joodarin dhulka buu yeelay. joodarin waxaa geesaha ka saarnaa 2 barkin dhiigan wuxuu ku yeelay shumacana qaybo fafanina ku yeelo aan aad u sii badnayn laakiin dhiig inta badan joodarin waa ku dul saarnaa asigoo maaragtaa ah sidii ii sheeg baar la jarjaray oo kale dhiigga markuu dhacaanku ka dhamaado wuu isku imaanayaa. isku soo wada duub guud ahaan falalka argagaxa leh ee ka dhacaya Soomaaliya ayaa sii badanaya waxayna tanina ka dhigaysaa in dadka Soomaaliyeed aysan weli ku baraarugsanayn qaabkii looga hortagi lahaa falalkan argagaxa leh ee dumarka lagula kacayo. waxaan ragga Soomaaliyeed ku leenahay fadlan dumarku waa hooyada waa walaasha waana inaad si naxariis leh ula dhaqantaan. haddii ay ku anfici weyso waa inaad reerkeeda si nabad leh ugu celisaa
hase yeeshee marnaba kaama mudno inaad gacantaada ku disho. Horay waxaynu maare ugu weysanayn gabdho Soomaaliyeed oo ay rag dhagrayaan, hase yeeshee kuwii lagu aaminay oo sida sharafta iyo qiimaha loo siiyey haddii ay gacantooda ku dilayaan waa runtii arrin naxdin leh. haddaba daawadayaal waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan daawatay waa dhamaystiratay. halkaad muuqaalkan kala socotid waa janaalka Haldoor Media. fadlan muuqaalkan la garay si uu u faafo gabdhaha kale ee Soomaaliyeed ee arrinta noocan oo kale uga digtoonaadaan. sidoo kale nagu soo biiro ka mid noqo asxaabteena. inta aan muuqaalkiisa kala kulmayno waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. mahadsanidin.